Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Sidee cunnooyinkeena aan uga dhigi karnaa kuwa dheelitiran? Cuntooyinka aan sida maalinlaha ah aan u cunno waxa ay isugu jiraan kuwa faa'iido noo leh iyo kuwa aanan wax faa'iido ah laga helin. Kuwa aan wax faa'iido ah laga helin waxaa ka mid ah jalaatooyinka ama snackska ama cuntooyinka baakadeysan ee warshadaha soo mara. Inta badan jirkeena ma siiyaan wax nafaqo ah. Haddaba waxaan u baahannahay in aan kala ogaano cunnooyinka nafaqada noo leh iyo kuwa aanan nafaqada noo lahayn si mar waliba cunnooyinkeena ay u ahaadaan kuwa aan ka helno nafaqo isla markaana ay heer sare u gaarsiiyaan caafimaadkeena wax dhibaato ahna aysan u keenin. Haddaba si arrinkaas uu noogu hirgalo waa in saxanka cuntadeena laga helaa ilaa 6 shay ee ugu muhiimsan cuntooyinka bini'aadamka ay cunaan. Qodobka koowaad waxaa ka mid ah cuntooyinka tamarta laga helo ama carbohydrateska kuwaas oo ay ka mid yihiin canjeelada ama bariiska, baastada iyo nooc kale oo ka mid ah cuntooyinka laga helo carbohydrateska ama tamarta. Qodobka labaad waa in saxankeena laga helaa cuntooyinka borotiinka leh waxaana ka mid ah ukunta, digaaga, malayga iyo digirta. Waliba digirta waxay aad u tahay cuntooyinka ugu borotiinka badan ee la sheego. Qodobka saddexaad waxaa ka mid ah ee aan u baahannahay fitamiinka. Fitamiinka waxaa laga helaa inta badan cuntooyinka cagaaran ama khudaarta cagaaran. Guud ahaan waxaa laga helaa vitamins. Qodobka afraad cuntooyinka macdanta laga helo sida isbaandheeska, bayga, canabka, muuska, liinta iyo guud ahaan miraha fawaakihda ah waxa ay jirkeena siiyaan macdan. Macdantaas oo jirkeena siinayso in uu caafimaadkiisa ilaalsado waliba aysan ku imaanin wax cudurro ah. Qodobka shanaad qofku wuxuu u baahan yahay in saxanka cuntadiisa laga helo dux. Inta badan duxda waxa ay keentaa dhibaatooyin caafimaad darro haddii ay jirka ku badato. Waa in la cunaa in aanan laga maarmin duxda. Gaar ahaan ma ahan qofka in uu duxda kor uga darsado laakiin mar waliba ay cunto la sameeyo waxaa laga helaa cuntooyinkaas duxda sida malayga oo kale inuu dux ku leeyahay hilibka oo kale inuu dux leeyahay iyo waxyaabihii la midka ah. Qodobka ugu dambeeya ee qof walba u baahan yahay in uu adkeeyo si heerka nafaqadiisa ama heerka cuntadiisa ay u saxsanaato ama cunno dheelitiran uu u helo waxaa ka mid ah inuu qofka cabo biyo ku filan maalin waliba ama 24 saac kasta. Ugu yaraan waliba waxaa la yiraahdaa in uu qofka 8 galaas oo biyo ah cabo maalinkii ama 24 saac kastaba. Mahadsanidin.